على بره waxaanu igala kulmay qosol la yaabkeeda leh oo runtii aan oran karo mid la mid ah hore uma idaan maqal haddii aad maqasheenna waa dhif iyo naadir nin aanu ilmaadeernahay ayaan ugu tegay maalintii tuulada waxaan doonayay markaa inaan la carraabo oo dee aan reerihii ula carraabo isaga laftarkiisu sideedaasoo kale u ahaayo dee meesha muu deganayn laakiin muraad kale ayuu u yimi nin dhalinyaraana uu ahaa wuxuu igu yidhi warniyow carraabi mayno waad ila joogaysaa halkan muraad baan magaalada ka leeyahay muxuu yahay muraadkaad ka leedahay war muraad baan ka leeyahay anaa ku warrami doonee horta ina mariyo meel dabakaayaa baan iska tagnay halkii baan iska fadhiisanay halkaasuu igu warramay wuxuu yidhi magaalada gabadh baynu kala tegayn caawa waan la ballansanahay markaa gabadhaas ad la kaxaynaysaa dee carraabi mayno aniguna gabadha la tegay iyo aroos iyo waxa aad baan u xiiseeyey dee waa sax baan ku yidhi maalintii halkii baanu ku racweynay habeenkii markii abbaare ilaa 7 meelaha ahayd baanu tagnay halkii ay inantu kula ballantay way noogu timi iyadoo keligeeda halkii baanu iska soo raacnay waxaanu doonaynaa inaanu soo soconno masaafo aad u dheer ilaa iyo jaamacad dubbad meesha la yidhaahdo inaanu nimaadna baanu doonaynaa tolog intiisu jira baad u malanaysaa jaamacad dubbad iyo haddii laba ku roon yahay meeshaanu ka imaanay la yidhahdo cali barre waa laba meelood oo aad iyo aad u kala fog waayahay haddaba markaanu soconay ilaa iyo saacad iyo bar meelaha ayaa inantii labadii kabood ay sidatay mid ahaani ka gool meeshu bahal gocondhaa bay leedahay gocondhada dadka qaarba magac bay u yaqaanaan laakiin gocondhadu waa geed qodaxa oo xilliga barwaaqada baxa markay qallasho ee cadceedu ay ku dhacdo ayay noqotaa qodxaan mar kale waa geed yar aan waxba mudayn oo caya ah markaa ay qallasho ayuunbay qodaxda noqonaysaa gocondhada oo weliba dhulka aad u daadsan oo qofka cagaadaan aanu ku mari karayn markaa inantii kabti gacanta iskaga qaatay annagu waxaan tusanaa labadeedoo buur qadhow waaweyn baynu tusanaa oo kaba ay gashan karayso maaha dee mana cagaadaan karayn annaga laftarkeegu markaa waxaa dan noqotay in inantu iyadoo waxa weeye labadii kabood mid ahaan gacanta ku sidata ay iska soo lugayso intaa waxaa dheeraa ninka gabadha la soo tegay aan maadarka nahay runtii waxaa nin afgaaban aniguna waxaan ahaa nin iska yara hadal badan inanta laftarkeeduna waxay ahayd inan furfuran oo aad u sheeko badan sheekadu bay isu kahay qabatay markaa kaftan iyo qosol iyo sidii laba qof oo weligood is yaqaanay ayaanu isula jan qaadnay isaguna gooni buu nooga soconayaa aad baanu isu fahnay markaa waayahay haddaba jowninkani kuma faraxsana sheekada yadan iyo batorka yagan iyo qosolka yaga waxaan wuu ka cadhaysay heba waa jiqjiqaati kaaga daranta inantiina kabaa ka godayo dee saasay marba waxa weye qodax bay iska goynaysaa qodaxa marba mudayso way iska xaaladeedu waa SOS wey ilaa iyo saacad kale markaan sii soconnay celcelisaan markaan masaafo 3 saacadood gaadhi sii soconnay ayay kabti kalena ka goday inantii labadii kaboodba gacantii ku qaadatay waxaanu samaynaa ma jirto xaalku waa sidii uun markii hore gocondhadii uun bay isu dheeli tirtay labadii kaboodba gacmahay ku soo qaadatay cagacadaantii muddo markii ay nagula socotay ayuunbuu ninkii yidhi khadar baa leedaa markaa ninkaas almadarka nahay halkaana ku kaajiyaaya sii yaro socda unbuu nagu yidhi xoogaa hore aan iskaga soconnay waanu iska sheekaysanaynaa aad qodaxda u dhibamaysa inanta xoogaa markaan soconnay ayuun baanu ninkii meedi wuxuu noo soo gaaray waa iskari sugno oo iska sheekaysano waaba cidba naga dabeyn weydiiya ninkii maxaa helay waa khadar waa u yeedhay nag juur waa khadar meesha ma dib u noqdo waa madow waxba la arki maayo waa khadar nu iyo na'tona waa ka weyn waxaan is war ninkii miyaa la qaniinay ma bahal baa qaniinay oo meel ba ku dhacay soco meeshii eegeeg nag waa ka quusta aniga inantii dee waxay noqotay markaa inaanu tashanno waxay dhinaadeen
ninkii ma hayno waxaana aan u badinayaa inaanu nabad qabin halkanna waxa weeye meel aynu u dhaafno aynu garanaynaa ma jirto haddaynu waxa weeye meel aynu aadna waxa inoogu dhow halkii aynu ka nimid halkaasaad adiguna garanaysaa ina celi aynu ninkiina u qayli doon tagnay meelaha meydkiisa yaalaban u malaynayaa bahal baa qarin u malaynayaa ninkii ma fayoobe abadan bay tiri ma gurigayga aan fiir cadda ka imaa laygu celinaya inaad iri ninkii waxa weeye ilaa kuwatay waa kan uma haynee isagina waxa weeye shir ku dhacaa laga yaaba aanu nabad qabine wax allaaliya waxaynu yeelo oo kala garan maynee anigu waxaan ku talin lahaa bal horta inaynu noqonno meeshii magaaladii ku noqonno abad iyo ha ka yaabin bay tiri maanaa la celiyaa ninkii waxay tidhi intii sheekada ay nala dheeraato wuu ina dhaafay wuu inaga horreeyaa wuu sii socday inaga dabagee jiqii jiq marka ku soconay baroora kala fadhiisatay ma horaan soconaya anigu haddaad raacaysay raac ayaan sawirnay meesha ceeb ha ka qaadinay isagu waxa weeye ama uu noolaan ama uu dhibane bal horta waxa weeye iska raacyada waanu iska soconnay meeshaan ku soconno maba garanaynaba ودي هبينك وين سعوني ودي هبينك وين سعوني واقع نود تلعيسها نسعوني لأن ده توس سعوني ماشي كسعوني توس وقرنا يمين هنا مربى وحويس كله عليه حد بس كيسعوني واقع مركب بريان وكسر عني وده قاري وده دي بانو حوي ديعي أي نورم مقطعين ونسي سعونه أيوم بانو راعنا كورا بارا إلا تضبطي سبحانه مالها تاي وعدد سوء عن سوق عضي أيان سوق اللي مش اللي يقانا بوضة داري لنا عبرها وحركو سوق اللي هود كحيكته مركاسا وحوي أنو مقرنا يمش حوران ومعرك يدونو مقرنا يسو مركا سوق اللي بوحنا ركي ضد aan dhaqankooda aad u fahmi waayay macna waan arkay dadkii waxa weeye deegaanka aan u socdo dadkani inaanay ahayn ayay ila muuqdeen nin baan arkay markaa ciyaal qaarna gacanta haya qaarna xambaarsan iyo haddii laba ku roon yahay dad koox wada socdo rag iyo dumar iyo ciyaal iyo waxlahoo aduu si u yar dhabayacsan oo aan suuriyaha meesha soo gashay maqalloocan baa waxay maxasiya dhowr qof baa salaamay hadalkooda xitaa waa bedelan yahay qaabkan u hadlayaan maaha qabkii de waxa weeye deegaankan aan ku socday ee aan doonayay looga hadli jiray adoo isku reebiciyaan baa mid yar baan ku raara meesha waa meel ma شو بوضة دارة بوضة دارة بوضة دارة قربي دبيعي سودكت وإلا بوضة دارة أنا مركان بقول وح شوجة نمان دمر الموسى نمان هبني ونس وكسو جوري ما تشاي من الحرة اللي هنا كسو جوري وإن بدل حوي دجاجنا ده كسر رقمي وهذا اللي بقولون هذا الكود لا يوصلين ما كهل كيا اللي أهلا يا waxa kale oo magaalada dhinaca kale ka degan niman Muuse Ismaaciil ah oo iyagu de waxa weeye sidii aan fahmi karay oo hadlaya anoo yaabano isla warbooda dheer siday noqoto booda dheer markuu maqli jiray ma arag laakiin waxaan ogaa booda dheer diin habeen istaagintay waan soo socday wadadii baan ka soo raacnay intii cagcad bay daba socotaa inan meel daba kaaya horteeda xaaraysa ayaa halkaas oo kale igala hadashay warina Ismaaciilow qof kan khayr qaba ilaahay ku soo diro ku yeelay maxaa ha waa soo bayr xagaad ka timi waa walaal wanaagsannahay meel aanu ka niman garanayne bal inantan meel horta yara fadhiis kuma odhan intii tumaad tahay kuma odhan waxa weeye haddii laba ku roon yahay wax kale ma weydiin maxkuur bal inanta horta cagcad tahay meel fadhiis soo soco walaalo dabakaayada ka furto inta halkii bay fadhiistay aniguna horaan u socday markaa magaalada dhinacii kale aan soo gaadho oo ay joogaan dad aan afgaranaya ilaa barqadii gurigii kuma soo noqon inanta xaggii kale aan joogay
gaari qaad baa soo maray markaa ku socdo gorgor gaadhiga qaadkaan iska fulay baanaan dib ugu noqon gorgor baan imi maalintii waxa weye gorgor baan joogay halkaasaan oday iyo awooya baan ugu yimi rag badanoo iyo adeer ah halkaasaan maalintii ka qadeeyey cidna waxba uga sheegin tulaabreed baan doonaya markaa in qabto casar markii ay ahayd casar dheere ee salaada casar la eedaamayo ayaan ka baxay gorgor tulaabreed baan kusii daayay xaafadii ugu horreysay marka soo galay tulaabreed oo inaan ilmaadeernahay aygu tu waaryaha sawti lahaa gabadh buu la tegey warku wayga soo reeyba amaana gabadh la tegey dee haay waxaana la guri gabadh buu la tegey hooyadii ku yidhi dee khadar baa nagu yidhi ma khadar maxamuud oo miyaa aragteen dee haay halkanuu marayay waa ninkii iga baxsaday markaasaan gebigaygu wax qurmuraar dilaaco cadho jiqno ها قبل لما تكلم سنة ويا سجل لتك قبل قصة بحصدي سيد واربعة مسومية والدها قبل ماذا قبل بسنة بوضع لنا كجين ويا تكلمت مركا قبل أنا قريب ما كجين ويا تقريني شيء ورياه هرب الحوية كاويا شكاك هرب السعودي قاعد ما هرب قلي وضيع أنا بركي بيجي علي warmaxaa dhacay buu gabadhii aad ka haysatay meeday gabadhan uma ka haysan ma kuru gabadha ninkaas ka haysay maxamed anigu ma ka haysan uu iga soo baxsaday di hadii la maqlo inaan reerdaayo waxa weyn ma soo ka haystay baa la ka baxsaday waxal kula joogo weyn harbu leeyahay neef loo war waxaad uga hadlaysaa markaa suud de maxaan kula hadlayaa saayda uu iska waxay kaas burcaan shay takay ma waa kaasan gaari kaga digo ninkaasi buu ugu xalayto ilaa ka xay gabadho dee jidka markii mareen uu weeyay gabadha saakan bood dheerada kaga ordayda soo wareystay waxa baan islaam noole haduu nool yahayba saa ka baxsay gabadha halkaas joogtay ma soo magaado ka baxaysay waa la raadiyay waa la doona waa la soo kixiyay labadeed waa la soo kakeen indhuhu cadeeyba wuxuu warba gabadhii aad waxa weeye kala soo tagtay meeshaada aniga dhakada iga saaraysa dimeer soo gabaan ku calo waa la qaxaya marba uu ku soo haadaya ninkaas tii wuxuu geystay adigu waxa la yiri bal nimankan horta waxa weeye halkan labadooda xidha doona gabadhii waana la xiray labadayda laba dibla loo xiray jeel meesha kuma yeelo xarig baa lagu roorinaya laba dibli gaara la shidaal salib bood dheer laga doonayay markii loo tagay joogantii oo yaabano isla ninkii xaq ka dhacay inantina way u sheekaysay inantii waxay tiri ila oran karmayso ninkii la soo tagay waan waayay deena kale la soo tagay u birti expander inantii saasi ku tiri markii loo tagayna waxay hadalkeedii ku adkaysato waxay tiri aniga cismaan bay la soo tagay hadda magacayga waxa ugu horeysay habeenka wala soo qaaday toobareed bal kanayadina bal ajaayib inta leeyahay waxa la yiri ninkii waa la sii daayay ilaa kiiski markaan uu dul hoganaya wal hawshii gaadheega ninkaasi geystay waa la sii daayay isagii waxa waradu wad fasaxanta ninkana dambiila warxun waxa la dugsi ma fadhiistee tii markiiba reerayna toohay waxa gaadhaya ilaa tuulo markii wali soo doog yahay wala isku turtureeyanti nimankii ka haystay isku turtureen xarig iyo waxaal waxa la yiri inta aad gurigoodii ka soo kaxaysatay ee waxa weeye aad marka dambe cidada kaga soo baxsatay waa lagu mihirinaya ay war maxaa la mihiray managa isma naqaan xalay isu gay horeysay waan xiranahay xariga la igu wareysanaya gebigaygu waxa ku rubaan cadaad bana cadada iga dar aan sida fulkaanaha ma qarxay gebigaygu sanduulla lagu mihirinaya bil iyadoo xaalad halka marayso ayaa ilaahay wuxuu keenay inan cali baraka timi oo ogeyd ninkan iyo gabadhan markii ay sheekaysanayeen
oo ogeyd waxa weeye markay ballamayeen oo ogeyd waxa weeye haddii laba ku roon yahay inay caawa israacayaan ayaa ilaahay noo keenay oo arrintana maqashay isla goobtii bay soo istaagtay waxay tii waryaadhahan may maqlaysaa anaa cali barre ka yimid anaa waxa weeye ninkan iyo gabadhan hawshooda ogaa inaan kan yari shalay buu magaalada yimid gabadhan khadar bay intaasoo dhan wada sheekaysanayeen isagaa la soo tugo xalay gabadha soo kaxaystay ninkana uu la soo kaxeeyey iska sii daayina keen af kala qaad bay noqotay mar kale isagana dib uu togo intuu baxsado arrintii wax lagu waacay reerkii waxa weeye inantu ahayd islaamo ogaaday meesha waxa ka jira oo gaadhisooyin gargaraystay baa magaaladii nagaga soo duldaaday inantii oo guri ku jirto oo waxa weeye halkana ayay la baxeen gaadhigii bay la fuleen iyagu qudhooda hawl bay fududeeyeen moogti sidaa laakiin layskagama hadhine rag baa markii dambana ka wada hadlay xaal baana arrintii lagu kala qaatay eedaasna waxa weeye nin baa lahaa anigaasi dhakada lay saaray inantaasaa ilaahay soo diro waxa weeye aan ku badbaaday maalintii baa inta ka dambeysay baan magaaladii gaadhi ka soo raacay tulaafrada burcaan dib ugu soo noqday ninkii annagu aan isarag muddo aada u dheer ilaa 3 sano ah ayaanu maalintii dambe kulannay anooda iska habiye markaa waxaan quruuri ahaa inaade hawshii berigii maxaad uga jeeda horta maxaad gabadha igaga baxsay haddaad ka baxsatay maxamed ridwaan aniga dhakada iga saartay wuxuu waryaha inaade gabadha soo garmaysa inay kabu ka go-een maasaan ku yidhi haa suu gabadha haddii lala soo tago oo ay kabuhu ka go-aan waa laga cararaa waa saan cadalay aan saan cadalaya oo saan cadalid waa maxay maasuu ninka ay u gasho maalintaasa xeradii iyo xooggii u hoog markaasaa nac xanaaqeyo oo markaa aniga masaan cadalay baad igaga cararaysa halkii baan isku diloona lagu kala qabtayba bal sheekadaa cajaayibta leh ninka ka soo dabaashay ee ay soo marto alagaa commentiga kusoo qor waa taas aad iyo aad baan islaamaya muuqaalka fogeeya sii shargareeya dee like tana alla baalmarina saaxiibaya